salaam asxaabtida qaaliga ah maalin wanaagsan waxaan maanta ka hadli doonaa habka ay ragga u soo jiidan lahaayeen gabdhahooda ama xaasaskooda. mawduucan waa mawduuc ay ku yar tahay in ay dad badan ay ka hadlaan. waxaa loo badan yahay oo kaliya gabadha sida ninkeeda kusoo jiidan lahayd, sida ku kasban lahayd. xitaa culture ahaan iyo dhaqan ahaan markii Soomaalida la eego, gabadha intaysan guursanin hooyadeed ayaa la fadhiisato, waxay u sheegtaa waxyaabaha looga baahan yahay sida ninkeeda ku kasban lahayd, sida raali u noqon lahayd. laakiin nasiib xumo way yar tahay in wiilka ay waalidkiisa la fadhiistaan intuusan guursan ka hor loona sheego waxyaabaha uu gabadha ku kasban lahaa, waxyaabaha looga baahan yahay. mas-uuliyadda ragga oo dhanna waxay u fahamsan yihiin badankood inay mas-uuliyadooda tahay inay biilka soo shaqeeyaan, nafaqada bixiyaan, quudkaas iyo gabadha waxyaabihii ay cuni lahayd iyo gurigeeda iyo waxyaabahaasoo idil in ay ka saaran tahay mas-uuliyad oo keliya. haddaba su-aasha meesha taagan waxay tahay, rag badan baa waxay aaminsan yihiin in ay adag tahay gabadha in qalbigeeda la kasbado ama la soo jiito. fikirkaasina waa fikir aanan saxsaneyn. way ay fududahay gabadha qalbigeeda in aad kasbatid. haddii aad kasbatidna waxaad heli doontaa guri jano oo aad ku heli doontid adduunka. inuu gurigaaga kuu noqdo guri janaad, xaaskaagana ay kuu noqoto waxyaabaha aad ka filayso waxyaaba ka badan, sida inay hooyo kuu noqoto, ku xanaaneyso, walaal kuu noqoto, ku garab istaago, saaxiib kuu noqoto, kula taliyo. intaasoo idil ay ku noqonaysaa. waxaan kuu sheegi doonaa ama aan kula wadaagi doonaa 5 qodob. 5taas qodob inta aanan kula wadaagin, haddii aad iska aragto ama inta aanan sheegin, marka aan sheego kadib aad ogaatid 5taas qodobba in ay aad leedahay isla markaana aad samaysid, waxaa tahay nin boqor ah isla markaana mudan in la siiyo bilad dahab ah. haddii aysan kaa muuqan ama 5taas qodobna aadan sameynin, waxaa kuu sheegayaa in aadan eedeynin gabdhaha oo aadan dhihin xaaskeyga ma jeclo ama maxay ahayd qof qalbigeeda la kasban karo ma ahan, wax walba waa u sameeyey, wayna ii noqon laadahay sida aan rabay. haddaba 5tan qodob maxay noqon doontaa? guud ahaan dumarka sidooda waxay u samaysan yihiin in ay u huraan nafsadooda, niyadooda, qalbigooda, jirkooda, dhuuxooda iyo dheecaankooda iyo dhiigoodaba dadka daneeyo. waana hubaal haddii aad 5tan qodob aad samaysid in aad natiijo wanaagsan aad heli doontid. haddaba waxaan u gudagali doonaa 5ta qodob maxay kala yihiin. qodobka koowaad, gabar walbo waxaa muhiim u ah in ay hesho amni in ay ka hesho ninka ay la nooshahay. amnigaasaytu waa siyaabo badan ay gabdhaha ka fiiriyaan. in ay xasilooni ku hesho, in aysan ka cabsanin ninka qabo in uu dilo ama dhibaateeyo ama maxay ahayd khiyaameeyo oo kale. khiyaanada markii laga hadlaayo, mas'aladaas dhowr jeer way soo noqnoqotaa qoyska markii laga hadlaayo. gabadha in aysan ka cabsan ragga ninka qabo ee uga cabsanin in uu dhibaato usoo jiido dhanka cifada ama ninkeeda inuu noqdo nin dhowrsan. dhowrsanaantaaseetana lagama hadlo oo kaliya ninka inuu tunto oo kaliya, laakiin waxaa soo hoosgalayo shukaansiga qaldan ee baryahan soo batay. in uu ninkii shukaansado gabar ajnabi ka ah isla markaasna uu u shukaansado way qaldan, in uu kula hadlo waxyaabihii loo baahnaa gabadha xaaskiisa inuu kula hadlo. taasina waxay noqotay baryahan dambe wax normal ah oo ninkii xaaslaha ahaa inuu gabadha uu shukaansanayo uu hadalo aanan qurux badnayn ama aanan saxsaneyn diin ahaan uu kula hadlo. taasi marka waxay noqonaysaa gabadha inaysan amni ku dareemin, in ay ka cabsato ninka uu qabo inuu dhibaato biri usoo jeedo ama sumcad ahaanba ay sumcadeeda dhimato. beri in lagu sheekaysto hiblaayo oo kale, ninka hebel ayaa qabo, hebel intaasoo gabdhoodoo la sheekaystaa, intaasoo gabdhoodoo shukaansadaa, laga haayo boontiyo, message laga haayo, codod laga haayo, videoyo xitaa marmarka qaar ay soo hoosgalaan. taasi waxay noqonaysaa utun ay waxay ku noqonaysaa gabadha qalbigeeda, isla markaana kalsoonidana meesha way kaga baxaysaa. haddaba qodobkaas koowaad waa qodobka amniga ah, in ay gabadha amni ay ku dareento wiilka qabo ama xaaska ay u tahay. qodobka labaad waa dhageysiga. waana waxa ugu muhiimsan oo gabar walba ay jeceshahay in la dhageysto marka ay cabaneyso, marka ay sheekeyneyso iyo marka ay fikirka dhiibeyso. dhageysi la'aanta waxaa kamid ah qofka markuu problemka qabo, gabadha ay xanaaqsantahay oo kale, ama waqti la qaadanayo telefoon in lagu mashquulo ama TV la fiirsado. inaad dhageysatidna waxay la macno tahay inaad ixtiraamaysid gabadhaada,
iyo in aad jeceshahay oo isla markaana aad qadarinaysid agtaadana qiimo ka leedahay boqoradna ay tahay. waxaan kasoo gudbnay qodobka koowaad oo ahaa gabadha inay hesho amni ama ay kugu dareento amni. qodobka labaad oo ahaa gabadha in aad dhageysato. qodobka saddexaad ayaan guda gali doonaa. qodobka saddexaad waa gabadha in aad siisid waqti. dhalinyaro badanaa waxay isweydiinayaan waqtigeyga oo dhan maalintii markaa soo shaqeeyo inta kale ayadaa iskale gurigaa la joogaa, laakiin waxaa dhacayso asoo qofkii wiilkii gabadhi uu qaba xaaskiisa aheyd guriga asoo la jooga isla markaana social media uu aad ugu mashquulsan yahay, cayaaraha inuu aad u daawado oo yacni waqti dhan uu sidaa u siin, laakiin guriga wuu joogaa laakiin waqti ma siinin xaaskiisa. marka waqti siismada waxaa ka hadlaynaa inaa waqti yawmiyan ama maalinle saacad nus saac like ugu yaraan nus saac rubi saac inaad gabadha siisid. markii taas laga soo gudbo waxaa jira waqti kale oo labadiinaba idin anfacayo, routiinkana lagu soo jirana idin bedelayo. sanadkii mar ama bishii mar ama labadii bil sidee kuu noqoto ama sida tabartaada ay noqoto inaad safar aadaan. safarkaas wuxuu noqon karaa xitaa ugu yaraan tuulo inaad tagtiin, magaalo kale inaad tagtiin, wadamo kale inaad tagtiin. taas waxay ka caawinaysaa refreshment ku noqonaysaa, jawigaaga isbedelayo, noloshiina oo routiinka aad kusoo jirteen oo subax walba lasoo kacayo habeen walbana la seexanayo oo wax isbedelka aan lahaynna way ka caawinaysaa. taasna waqti siismada marka aan ka hadleyno waa inaad gabadha waqti siisid. waxaa meesha seeta lama huraan ee marka waqti siismada ama guriga marka isla joogtiin in aad isku diyaarisid gabadha xaaskaaga ah. wiilasha badanaa marka aad fiirisid ama xaasaska leh marka ay banaanka aadayaan way labistaan, marka ay banaanka aadayaan way iscatariyaan ama barfuune marsadaan, laakiin guriga marka uu joogo waxaa laga yaabaa inuu waxaasayto dhan ku baraarugsanin. waxaa kuu sheegayaa marka gabadha in ay leedahay indhahaaga oo kale, sida adi indhaha aa ugu nuursatidna gabadha ay ugu nuursato. waxaan kugu talinayaa marka inaad isku diyaarisid gabadhaada, u labisatid, timaha saliid fiican marsatid, barfuunada kuwa ugu carafta badan xitaa aa u keedsatid ayada sida ugu marsatid. qodobkaas aytaa meesha ugu soo gudbayaa. waqti siismada inaad gabadha waqti siisid waxay u tahay muhiim ama daruuri wax u ah. qodobka kale ee afaraad marka usoo gudubno waa qodob asna aad u muhiim ah, kaasoo ah ammaanta ama gabadha inaa hadal wanaagsan kula hadashid. hadal wanaagsanaantaas marka waxaa soo hosgalayo gabadha inaa ammaantid, sifaadka ay leedahay ku wanaagsan tahayna inaa ku ammaantid. dhiirigelintaa soo hosgalayso. gabadha waxaa laga yaabaa inay dhibaato la kulantay ama problemo kale oo nololeed ee la kulantay, inaa u noqotid qof ay ku tiirsan tahay, dhiirigeliye u ah, mar walbana garabkeeda taagan. hadal wanaagsanaanta, naxariista, jaceylka inaad dareensiisid gabadha qiimaha ay leedahay, mar walbana aad kula hadashid hadallo wanaagsan. waxaa dhacdo hadallada caatifada marka laga hadlayo ama jaceylkii naxariista labada qofood intaysan isguursan ka hor waxaa laga yaabaa qurxee xabiibti kanaa tahay, indhahaygaa tahay, biyahan kaa dhex arkaa, laakiin laisku gabyo xitaa marmarka qaar, laakiin markii la isguursado waxyaabahaasoo dhan inay meesha ka baxaan. waxaa nasiib dara sii ah in ragga qaar waxyaabihii ama ammaantii ama jaceylkii iyo naxariista hadaladii wanaagsanaa ay xaaskiisa u baahneed in uu la wadaago gabar kale uu sambaatiyo ka diyaarsanayo. taasina waxay kugu tahay ayaan daro. hadaladaas wanaagsan marka waxaa u baahan gabadhaada niyadeedana way quudisaa, qalbigeedana way quudisaa, dhiirigelinna way usii tahay. hadal wanaagsanaanta marka qodobkaasaytana ayadana meeshaas ugu soo baxaya. qodobka kale ee ugu dambeeya wuxuu noqonayaa number 5. qodobkaasna waxaa waaye caawinaada, inaad gabadha caawisid. caawinaadaasayt way siyaabo badan tahay. haddii aad jaanis u helaysid waqtiyada aad guriga joogtid oo kale inaad ka caawisid nolol maalmeedka guriga, hadday noqoto nadaafada oo kale, ugu yaraan dharka xitaa inaad lalaabtid, inaad guriga ilmaha kala qabatid. ilmaha marka iyada usoo qabeynayso caanaha usoo qas, ilmaha waa isla dhasheen, waa wax simbal ah. waxaa laga yaabaa inaad adig ka xoog badan tahay, ka caafimaad badan tahay, ka adkeysi badan tahay rag ahaan markii loo fiiriyo, wax weyna kuguma qaadanayso. laakiin gabadha waxay u aragtaa marka uu ninkeeda garab istaagsan yahay, macaawinayo,
naxariis ayay ka qaadaa marmarka qaar waxaa dhacda xitaa inaysan ku ogolaanin waxyaabaha aad sameynaysid inaad sameysid ee ku dhahdo anaa sameyn karo naso. caawinaada nooc kale way noqon kartaa haddii aadan u samaysnayn nooca inuu guriga firfircooni ama shaqo uu ka qabto inaa ugu yaraan xitaa u sameysid qof caawiyo hadday noqon lahayd gabar adeegta inaa u keentid, hadday noqon lahayd inaa lacag siisid oo dhahdid qof ku caawiyo keenso ama qof waxyaabahan kaa caawiyo inay noqoto. dhankaas waa dhanka qoyskiina. caawinaad waxaa jirto taas ka baxsan oo gabdhaha ay badanaa jecel yihiin gabadha inaa ku caabisid mustaqbalkeeda, hadday noqon lahayd dhanka waxbarashada gabar xaas ah oo wax baranaysa haddaa qabtid inaa marmarka qaar xitaa haddii aa aqoon u leedaha waxyaabaha ay barato aad ka caawisid, imtixaanka la diyaarisid, waxyaabaha qaar aad u fududeysid oo kale. hadday noqoto gabar shaqeyso oo kale in aad kala shaqeysid sida ay mustaqbalkeeda usii hor socon lahayd, shaqo aa u raadisid oo kale, business aa u abuurtid oo kale haddii aa awoodaas leedahay, ama haddii aad ka caawin kartid xitaa ugu yaraan inaa afkaar siisid ama fikir intaa sameysid aad dhahdid fikirkana ku haayaa wuu ku anfacayaa. hadday tahay gabar shaqeynayso inaad dhahdid shaqadaada waxyaabahaased inaa kusoo kordhisidaa qurux badan. caawinaada xad ma lahan iyo xuduud, qofka habka uu rabo ayuu qofka kale u caawin karaa, kuma noqotonto hal point oo kaliya. waxaan kasoo hadlay 5 astaan ay muhiim u tahay gabar walbo inay hesho, adigana muhiim ay ku tahay sida u kasban lahayd qalbiga gabadha xaaskaaga ah. 5taas astaamood ama 5taas afcaal ama 5taas ficil haddii aad iska aragtay ama aad tahay qof hore u sameeyey waxaan ku leeyahay waxaa tahay qof boqor ah. gabadhii haysato nin noocaas ana waxaan u sheegayaa inay haysato qof aan la heli karin, inaad si fiican ugu sii dhegnaatid waan kugula talinaya. haddii ay jirto sifaadkaas ama astaamahaas qayb ay kaa maqantahay qaybta kale aadan helin inaad kusoo dirtid aan kugula talin lahaa. haddii aslan 5taas qodob aad sheegayna ee hal mid aadan sameynin waxaan kugula talin lahaa inaa hadda dib usoo sameysid, isla markaana aadan eeda gabadha dusha aadan ka saarin si aad u heshid guri janno ah. waxaan kugula talin lahaa 5tan qodob aan hore usoo sheegay ee ugu horeyso gabadha inay hesho amni iyo xasilooni qofka ay la nooshahay, iyo in la dhageysto gabadha, hadal wanaagsanna lagula hadlo, waqti fiicanna la siiyo, isla markaana la caawiyo. waxay keenaysaa in si fudud aad qalbigeeda ku hanato, isla markaana ay jeceyl iyo naxariis inta aad siisay adiga in ka badan ee ayada ku siiso. waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaana idiin rajeynayaa nolol farxad leh oo ay ku dheehan tahay jeceyl iyo naxariis iyo isfaham. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.